وزاري هوري دولدي كوميل gaarkeeda aan musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland Dr. Abdulli Maxamed Ali Gaas ayaa maanta barqadii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo kadib markii uu saako ka soo kictimay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaas oo muddooyinkii dambe howlo shaqo u joogay soo dhaweynta Abdulli Gaas ayaa waxa ka qayb qaatay odayaashii waxgaradka iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo kadib markii uu ka soo degay diyaaradii uu la socday ayaa waxa uu mid u gacan qaaday dhammaan dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo kaas oo saxaafadda kula hadlay gudaha garoonka ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalkii ka dhacay degmada Taleex iyo natiijadii safarkii uu ku gaaray dalka Kenya Abdulli Maxamed Ali Gaas ayaa wax lagu xumaada ku tilmaamay dagaalkii ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Sool isagoo ugu baaqay dhinacyadii halkaas ku dagaalamay inay wax waliba ay ku dhameeyaan wada hadal waxaan rabaa fursad ka faa'iideysanay inaan aad uga tacsiileeyo dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay magaalada Taleex dagaalka ka dhacay dhawaan waxaan ku baaqayaa baaqnadeed waxaan ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo colaadda la yareeyo in xasarad joogsato sidoo kale dowladda Puntland waxaan ku baaqayaa in dhibta meesha ka jirta aysan dhib ku zaa'idin oo ay haddaysan xal geynin meesha aysan dhib iyadoo ay ku kordhinayaan Gaas ayaa ugu dambeyntii sheegay intii uu ku sugnaa dalka Kenya uu la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isla markaana uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka Puntland inta ugu muhiimsanahay beelaantii aan sheegay in ka gaarsiiyay beesha caalamka dhibaatadii ka dhacday gobolka Nugaal iyo Bari arrintaas ilaahay sidii uu yahay dad ku dadaalay in gaarsiiyo beesha caalamka ka hadlo saxaafadda xafiisyada beesha caalamka ka jooga Nairobi aan gaaro aan kala hadlo ujeedada labaad oo tagay waxay ahayd sidoo kale beesha caalamka inaan uga soo warramo xaaladda ka jirta Puntland iyo qorshaha doorashada ka dhici doonta bisha January 8-deeda 2014 waan rabnay in noqoto beesha caalamka inay ilgaar ku yeelato arrinta iyada la socoto si meeshaas ay ugu dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah ay ku qaracsan yihiin dadka Puntland dowladda ka soo baxda meeshaas ay noqoto dowlad ayagu ay ku kalsoon inay tahay dowladoodii oo si xalaal ugu dhalatay si xaqar ay ku doorteen laas arrimaha ayaa ugu muhiimsanaa waxaan meesha u tagay musharax ayaa markii laga soo galbiyay garoonka ayaa wuxuu boqosho gaaban uu ku tagay hoyga Gaalkacyo ka degan yahay Islaam Bashiir Islaam Abdulle halkaas oo kulan gaaban uu kula qaatay haddii aad doonayso guri haddaad doonayso guri yar haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado jikada casriga iyo waliba beerta nasashada oo aad u balaaran iyo guryaha irida weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu amaankooduna uu sugan yahay intaba waxa kula diyaaray shirkadaasi waxa kale ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto waxa intaas dheer meel kasto shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo waliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda waliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan